xafladan sharafta badan oo aan ugu soo xireyno dufcadan tababarkii dheeraa ay soo qaateen waan arkayna maanta inay dhaarta Ilaahay u mareen inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan shuruucdana ilaaliyaan aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay sharaf weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo oo aan marxaati ka noqono idinkoo dhamaystay 9 bilood oo tababar adag ah oo maanta aad diyaar u tihiin inaad dalkiina u adeegtaan oo aad difaacdaan aad iyo aad yaan ku mahad celinayna qof walba hawshan ka soo qayb qaatay waxa la idin dhaariyay maanta oo Ilaahay hortiisa aad ku marteen annaguna aan marxaati ka nahay inaad difaaciisaan dalkiina diintiina iyo dadkiina shuruucda qaranka u yaalnana aad ilaalinaysaan waa mas'uuliyad aad iyo aad u weyn maxaa yeelay waxaad maanta ku dhaaratay inaad diyaar u tihiin inaad u dhimataan oo dhiigin u daadaysaan wax ka dambeeya ma jiro qof ku hibay naftiisa dalkiisa inuu ku bixiyo wax ka dambeeya ma laha taas runtii waxay ka turjumaysaa xaaladdan ku jirno oo lidinku dhaariyay inaad difaacdaan dalkiina markuu nabad yahay iyo marka uu colaad ku jiro dagaal ku jiro waxa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan sidoo nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo anagoo idin iyo shabaab dalkan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga maxaa yeelay annaga xaqa annaga ummadda mathalna iyagu waa qowleysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah waxaan idin leeyahay wax walba waxaan ka shaqeynaa wax walba inaan geeno ama aan awoodeena saarno ama dhaqaalaheena aan gelinno dhanka dagaalka marka idinka maanta oo la idin tababaray ciidanka asluubta macnaheedu ma aha inaad ilaalinaysaan maxaabiis kaliya waxaa la rabaa hawlgallada dalka inaad ka qayb gashaan oo aan loo kala harin maxaa yeelay wax walba waxaan niri dhanka dagaalka haday tahay dhaqaale haday tahay awood haday tahay khibrad wax walbaba maxaa yeelay dalku wuxuu ku jiraa dagaal adag iyo ku jiraa sidaas darteed waa ku khasbannahay inaan dalkan aan dib gacantii ummadda Soomaaliyeed ugu soo celinno inaan dib ciidanka qalabka sida ugu soo celinno inaan dib sharciyada ugu soo celinno inaan dib maxaan ku raahdaa dimuqraadiyadii aan ka ballanay oo ahayd qof iyo codkiis aan dib ugu soo celinno aasaas waxa uu ah in la xoreeyo in nabad la keeno waxa noo ballanay kulligeen marka yar iyo weynba shacab iyo ciidan madax iyo qof walba oo Soomaaliyeed waxa noo ballana dalkan inaan ka horeyno oo aan banaanka ka dhigno qolooyinka horarka ah haddii ay noogu imaanayaan nabad ay qaadanayaan oo ay wada hadal ama hub ka dhigayaan oo ay ogol yihiin inay ummadooda ka soo mid noqdaan annagu horaan u ballan qaadnay inaan siinayno soo dhaweyn wanaagsan marar badan waa sheegnay inaan cafinay oo aan cafis u fidinay laakiin haddaysan qaadan cafis waxaa noo ballana annaga guulaysanayna annagaana u harayna dalka annaga iskale dalka annaga wanaagiisa ka shaqeynayna ballan ilaahay waxaan uga kulligiin ballan ilaahay waxaan ku ah inaad dhimataan Soomaa soo ballan ilaahay ma
annagana bal ilaahay waxaan ugu wax alla wixii loo baahan yahay oo dhanka dagaalka inaan la diyaar garoono. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi.